وزير ku-xigeenka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Saciid Maxamed Jibriil ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dambiyood weyn oo laga hirgelinayo duleedka magaalada Caynabo kaas oo hirgelinaysa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta biyuhu waxaana munaasabadii lagu dhagax dhigayay dambiyoodkani ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynabo ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay isduwaha kheyraadka biyaha gobolka Saraar Cabdullaahi Maxamed Wasame maayirka degmada Caynabo Xasan Yuusuf Aadan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abubakar Cali qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynabo iyo waxgaradka gobolka Saraar waxayna dhamaantoodba soo dhaweeyeen dambiyoodkan xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso magaalada Caynabo waayo xukuumado badan baa soo maray wasiirro badan baa soo maray nasiib uma yeelan in biyo macaan ka soo baxaan gobolka Saraar hadda waxaynu maraynaa hal ceel laba ceel waa la qoday hal ceel waa la macaaneeyay oo ceelkii weynaa taariikhda ahaa ee Caynabo riig saddexaad ceel saddexaad oo boorhoola oo 300 mitir qodmi doona ayaa isna imka insha Allah inoo bilaami doona maanta waxaynu taaganahay dhaam 140 160 aynu taaganahay hoosna 4 mitir waa kayo wasiiraad baan ku soo dhaweynaynaa wasaaradda biyuhu runtii aad iyo aad bay ugu ammaanantahay kulli hadalku iska kooban yahay waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa oo mahad celinaynaa marka koobaad Ilaahay marka labaadna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhabeeyay ballanqaadyadii uu ballanqaaday gobolka Saraar marka saddexaadna wasaaradda biyaha iyo ilaa wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha sida hawlkarnimada leh ee gobolka Saraar baahida weyn ee biyo la'aanta ay ka jirtay ay uga dhabeeyeen inay waxa weeye biyo uga soo saaraan haddii aanu nahay waayeelka deegaankan sanadka wasaaradda biyaha waxaan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mashaariicda biyaha ee gobolkan runtii ka fulisay baahi weyn baan noo qabnay biyaha macaan hadalka iyagu markuu batay xaaladii waxay noqotay biyo batalaq waxa halkan aanu ka dhagax dhigaynaa dhaamka noo soo dirtay dawladda dhexe oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha Masar Saciid Jibriil uu hogaaminayo ayaanu halkan ka dhagax dhigaynaa dhaamkaasi waa dhaam aad u ballaaran waxaan isleeyahay waa kii ay reer Caynabo biyo la'aanta kaga bixi lahaayeen iyo deegaanada gobolka Saraariba dhaamka laga dhisay Ilaahay buu cod barakaysan Ilaahay inuu ka dhigo wasaaradda iyo horumarinta biyaha aad iyo aad baan u soo dhaweynaa wax qabadkeeda ballaaran ee dalka oo dhan ka wado gaar ahaan gobolka Saraarna ee aad uga wado waan soo dhaweynaa dakhligan waxa laga fuliyaa dhaamkan dakhligii xukuumadda ururisa cashuurihii dadka laga ururiyay waa odoroska iyo kaydinta dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay horumarada saas oo kale lagu qabto aad iyo aad baan xukuumadda ugu mahad celinaa ay dakhliga ay ururisay iyo cashuurtii dalka ay ka qaaday ay ugu soo celinayso dadkeedii ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Saciid Maxamed Jibriil waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dambiyoodkan laga hirgelinayo duleedka magaalada Caynabo inta uu leeyahay iyo waliba faa'iidada uu leeyahay bulshada gobolka Saraar runtii aniga waxa ii farxada in maanta Caynabo oo hore biyo la'aan iyo biyo qadhaadh looga caban jiray maanta aan hadal hayno biyo macaan ama ceel ha ka soo baxaan ama ceelkii asalka ahaa ee Caynabo ee geelu ka cabi jiray ee taariikhiga ahaa la macaaneeyay oo dadku ay ka cabayaan iyo magaaladu dhaamkan cabirkiisu waa 140 iyo 160 hoosna waxa loo qodayaa 4 mitir dhaamkan waxa u dhan dhammaan wixii loogu adeegayay bulshada biyaha halka Ilaahay markuu inoo geliyo sida taangigii dararkii xoolo ay ka cabayeen kiyoosyadii iyo kaalmihii ay muxuu ahaa bulshadu ka cabaysay halkii xoolo ka cabayeen kiyoosyadii musqulihii baa ku jira dadku si aanay muxuu ahaa meelaha gacmada yaanay u fadhiisanin waxa ku jira xayndaabkii ka ilaalinayay in xoolaha iyo dadku soo galaan gacmadii ayaa ku jira qasabada lagu soo xidhi doonaa intaas oo dhan ka soo saara dhaamka biyaha dabadeedna ku shuba taangiga waana la nadiifinayaa biyaha waana la nadiifinayaa oo waxa la marinayaa hab lagu nadiifiyo oo biyo nadiif loo cabo dhaamka horta intaas ka kooban yahay Salabaan Cilmi Saciid Caataye telefishinka caalamiga ee Sahan Caynabo